waxa ay ula dhaqmeen si ka baxsan bini'aadamnimada. Waxa ay gurteen wixii kheyraad dhulkooda ku jiray, waxayna adoonsadeen dadkoodii, dumar, caruur iyo ciroole. Waxay aaminsanaayeen ilaa iyo haddana ay aaminsan yihiin in ay ka sarreeyaan qof kasta oo madow ah oo koonkan ku nool, in ay ka sarreeyaan. Dalalka aan calaamadahaas bahalnimada ah ku kacay waa dalal ku yaal qaaradda Yurub, waana dalalka Faransa iyo Belgium. Xalaqadan waxaan uga hadli doonaa oo inta badan aanay horay u maqal gumeysiga ugu xumaa abid loo geysto bini'aadam, waana gumeystaha Faransiiska. Inta aanay bilaabin xalaqadan, fadlan nagu caawi inaan gaarno meel fog, lana wadaag saaxiibadaada. Faransiiska ayaa bilaabay ololihiisa gumeysiga laga soo bilaabo 1534 ilaa 1980, wuxuuna ku dhammaaday qabsashada 73 waddan oo kala duwan oo ku yaal Afrika, Ameerika, jasiiradaha Badweynta Hindiya, Bariga Dhexe ilaa Aasiya. Waxaana lagu dilay in ka badan 120 milyan dadka asaliga ah ee dalkaas u dhashay, sida ku xusan buugga gumaadka gumeysiga. Sida qof kasta og yahay in ololahaas gumeysigu aan ahayn kuwa dil iyo adoonnimo keliya ku kalifay, balse ay ahaayeen sababo kale oo kasii xumaan iyo axmaqnimo badan, kuwaasoo ugu muhiimsaneyd in Faransiisku arkayay oo uu rumaysnaa inay caddaanku ka sarreeyaan inta kale oo ay ka mid ahaayeen dadka dega koonkan. Waxaana sidoo kale uu aaminsanaa in ninka cad uu yahay sayidka koonkan, halka inta kalena loo abuuray inay u noqdaan addoomo iyo inay u adeegaan ayaga oo keliya. Marka laga soo tago xaqiiqda in Faransiisku uu leeyahay dabeecad qallafsan ee aan la dabooli karin, waxa uu had iyo jeer raadinayay kheyraadka dabiiciga ah ee qaaliga ah ee ku badan dalalkan, gaar ahaan Afrika oo ay ugu yeeraan qaaradda qaniga. Sababtoo ah mid ka mid ah dalalkan weligood ma soo saarin macdanaha ku jira dhulkooda sida birta, dahabka, qalinka, dhaymanka, saliidda iyo dhammaan macdanaha ku jira dalkooda. Wax dhib ah ma laha haddii qaali ay tahay ama haddii ay jaban tahayba. Muhiimadu waa in ay bililoqo u diro waddankiisa Faransiiska si ay ugu raaxaystaan, ay u dhistaan biyo-xireenno, wadooyin, isbitaallo iyo horumarinta dhaqaalahooda. Si dadka Faransiiska ugu raaxaystaan shaqada weyn ay carruurtooda ka qabtaan dalka dibaddiisa, waxa ay xero weyn ka dhisteen bartamaha caasimadda Paris oo ay ugu magac dareen beerta xayawaanaadka bini'aadamka, oo la micno ah beerta gumeysiga. Waa midii ugu axmaqsaneed uguna foolxumo badneed ay Faransiisku kula dhaqmaan dadka. Faransiiska oo muujinaya siyaabaha ay u nool yihiin barbaarinta aasaasiga, sida ay ugu yeeraan iyaga qaabab la mid ah sidii ay u joogeen dhulkoodii hooyo oo ay ka mid ahaayeen qaab dhismeedka guryaha, habka labiska iyo beerashada, si ay u kordhiso ku raaxaysiga basharka. Waxayna keentay dad fara badan oo ay kasoo afduubatay qabiil kasta, caruur, rag iyo dumarba. Waxay keentay inay si qasab ah qoorta iyo lugaha uga xiraan, waxa ayna ku rideen qafis bir ah oo ay ku jiraan daanyeero iyo xoolo. Waxayna ku qasabtay in ay kula kacaan falal bahdil ah oo bini'aadantinimada ka baxsan, sida dumarka iyo carruurta oo qaawan iyaga oo aan wax dhar ah haysan, laguna qasbay in ay dadka soo booqdo hortooda ku cunaan hilibka eyga iyo jiirarka, si ay u jahwareeraan una soo bandhigaan fikradaha ah in ay yihiin dugaag aan wax shaqo ah ku lahayn bini'aadamka. Bilowgii 1906 markii dowladda Faransiisku ka dhisatay magaalada Marseille xero ay ka buuxiyeen maxaabiis badan oo masaakiin reer Goonga ah, markii la bilaabay in dadka soo booqday ay soo galaan, waxa ay la yaabeen dadka ay meesha ku xirxiran. Waxa ay bilaabeen in ay qaabilaan in ka badan 40,000 oo soo booqda maalintii, si ay ugu raaxaystaan dad u eg sida xayawaanaadkii. Dadka meesha soo booqanaya waxay isugu jireen caruur, haween, dad waayeelo ah, si ay u arkaan dadkan oo u dhaqma sida xayawaanaadka, kuwaasoo Faransiisku u duleystay. Tirada dadka soo booqanaya waxa ay muujisay xaddiga cunsuriyadda ee ku faaftay bulshada Faransiiska waqtigaas iyo guud ahaan Yurub. Kadib lacago fara badan oo ay ka heleen asaasayaashii meeshaas ee aadanaha lagu adoonsado, waxa ay go'aansadeen in ay ballaariyaan fikradahaas oo ay abuuraan meel aad u weyn oo heli karta tirada dadka ugu badan maxaabiista Afrikaanka ah. Fikradaas oo guuleysatay awgeed, wadamada kale ee Yurub ayaa la dhacsanaa fikradaas,
Kingi Laboto oo ahaa boqorkii Belgiumka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee raacay fikradaas wuxuushnimada 1908 waxa uu amray in la sameeyo meel lagu adoonsado bini'aadamka magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium ku taal. boqolaal qof oo reer Goonga ah oo laga soo wareejiyay dhulkoodii, guryahoodii, in ka badan 1.3 milyan oo dad reer Belgium ah kuwaasoo dhammaantood u yimid si ay ugu raaxaystaan daawashada dadka la soo adoonsaday. Arrinta la yaabka leh ee arrintan ku saabsan ayaa ah in bilowgii qarnigii 20aad ay dad badan oo taageersan aragtida ah in qofka caddaanka ah uu ka sarreeyo qofka madowga ah. Weli kama aysan suulin Faransiiska iyo dhammaan dadka reer Yurub gumeysiga iyo midabta-koorka lagu hayo dadka madowga ah. Tusaale ahaan waxaa kugu filan ciyaartii dhexmartay Faransa iyo Argentine ee koobkii dhammaaday dhawaan guusha ku raacday waddanka Argentine. Maxaa dhacay markii laga badiyay Faransa oo koobkii laga qaaday? Ciyaartoyda ka soo jeeda asalkooda qaaradda Afrika ayaa soo bandhigay qoraallo ay ugu xun yihiin koobkii laga qaaday. Barahooda bulshada ayay soo dhigeen, waxaana lagula kacay midabta-koor midkii ugu xumaa. Waxayna u soo qoreen daanyeero ayaa tihiin, waxayna u soo direen sawirada daanyeerada ciyaartoyda. Waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanada lagula kacay falalkaas Kingsley Coman oo ciyaara Bayern Munich iyo Tchouaméni oo u ciyaaray Real Madrid. Ma ahan kaliya Faransa in ay jecel yihiin cunsuriyadda. Waxaa jira wadamo kale oo ka mid ah sida dalalkan aan soo sheegnay ee Faransa, waxayna soo qaateen sawirro ayagoo ku jejeesaya waddanka Morocco oo aan ogeyn waxa uu ka sameeyay koobkii adduunka ee dhammaaday. Arrintan ayaa soo baxday kadib markii Morocco ay garaacday wadamada kale ah Belgiumka, Canada, Spain, Portugiiska oo ay ka reebeen koobkii adduunka ee ka dhacay waddanka Qatar. Ma aaminsan ilaa hadda sida ay ugu guuleysteen waddan yar oo Afrikaan ah. Waxaa soo baxday xaasidnimada iyo hagardaarnimada laabtooda ka buuxda. Shacabka Faransa oo dhan ma wada aaminsana waxaan, balse qaarkood ayaa weli ay ku dambeysaa wuxuushnimadan iyo midabta-koornimadan. Bal ka waran haddii aad joogi lahayd booska ciyaartoyda Faransa ee lagu midabta-kooray koobkii adduunka, isla waddankii ay difaacayeen, isla waddankii ay u ciyaarayeen, isla waddankii ay sharaftooda kor u qaadeen, maaliyadooda ay u xirteen. bal maxaa sameyn lahayd adiga haddaa booskooda joogi lahayd? Halkaas ayaanu kusoo koobaynaa xalaqadeena maanta. Mac salaama akhyaarey, kulanti dambe oo xiisa